wasiirka caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland wasiir Cali ayaa soo gaaray caasimadda gobolka Gedo ee magaalada Garbaharey iyadoona halkaas ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Gedo saraakiisha ciidamada dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Garbaharey. ujeedka safarkan oo ku yimid wasiirka caafimaadka magaalada Garbaharey ayaa waxa uu ku tilmaamay u kurgalida xaaladda caafimaad ee gobolka Gedo iyo hay'adaha ku shaqeeya hawlaha caafimaadka. waxaana ugu horreyn goobta ka hadlay barasaabka gobolka Gedo maxamed isagoona ku soo dhaweeyay wasiirka caafimaadka magaalada Garbaharey. أولاً waxaan ku soo dhaweynayaa wasiir Cali wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Jubbaland wasiir ku soo dhawow gobolka Gedo caasimadiisa degmada Garbaharey dadweynihii oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada ururkii haweenka dhalinyaradii culimaadudiinkii odayaashii saraakiishii guddigii maamulka degmada ilaa heer gobol ku soo dhawow gobolka oo gobolku waa gobolkaagi soo dhawow wasiir. sidoo kale waxaa dhankiisa ka hadlay wasiirka caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland wasiir Cali Xaaji Nuur Cali isagoona sheegay inuu u kurgali doono howlaha caafimaad ee deegaanada gobolka Gedo. wasiir soo dhawow adiga waftigaaga soo dhawow adiga waftigaaga nabad ku soo dhawaada waxqabadkiini keena. horta socdaalkeena wuxuu ku saabsan yahay sidii aan u fiirin lahayn markaan kurgali lahayn marka xaaladaha caafimaad ee ka jira gobolka iyo dhammaan hay'adaha ka shaqeeya iyo maamulka gobolka iyo hadafka aan wadno oo qorshe hawleedkan dejinay iyo sidii loo hirgelin lahaa ayaan wadnaa. marka kadib maamulka gobolka ayaan isarki doonaa marka dhammaan maamulka iyo mas'uuliyiinta kale oo sharafta leh iyo hooyooyinka waa mahadsantihiin khayr badan idin rajeynaa. si kastaba waa markii ugu horeysay wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Jubbaland uu booqasho ku yimaado magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo tan iyo markii loo magacaabay wasiirka caafimaadka. Maxamed Kaafi Aadan Bishaar, Kaafi UK, Somali News TV, degmada Garbaharey xarunta gobolka Gedo.